magacaabo Yakhshid waxaana garoonkan loogu magac daray Peace Stadium iyadoona halkan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda xiriirka mini footballka sidoo kale guddiga Olombikada waxaana hadda xirag jarka sameynaya isla markaana garoonka maanta jari doona oo furi doona qaar ka mid ah mas'uuliyiinta uu ka mid yahay rugcada sare isla markaana ka tirsan guddiga Olombikada Soomaaliyeed Xaaji Colow iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale halkaasna khudbado ayaa markaan laga soo jeedin doona laakiin xirag jarka marka hore iyo hadalka aanu ku bilaawno waxaana si wada jari doona gudoomiyaha mini footballka jubbooyinka Carabi iyo sidoo kale Xaaji Colow oo isla markaasi maanta munaasabadan ka soo qayb galay kadibna Japan ayaa sidoo kale kamid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabada xirag jarka halkaasna waxaa dambeyn doona khudbado dhinacyada kala duwan ee markaas soo jeedin doonaan Xaaji Colow iyo waxaa isla jaraya iyo gudoomiyaha mini footballka ee jubbooyinka Carabi si wada jira ayayna markaas u jarayaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaa sharaf weyn noo ah aniga iyo mataqaanaa asxaabtayda mini footballka iyo ciyaartooyda qaranka iyo dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay iyo mataqaanaa taageerayaasha xaafadda waxaan leenahay galabta garoonkan Peace Stadium hambali aan leenahay waxaan hadda jecelnahay insha Allah aniga saaxiibkay Carabi oo say aan u qaadaysan arrimaha mataqaanaa mini footballka inaan wada jarno insha Allah taala aan rajeeyna guul inay mataqaanaa noogu furato insha Allah taala sidoo kale صحافة بعد الصريح من الفوتبول الصومالية وانشرنا إن شاء الله علو هذا يجي ما شاء الله. أول بسم الله الرحمن الرحيم هيه waxaana si wada jaray Xaaji Colow gudoomiyaha shirkadda Olombikada Soomaaliyeed iyo sidoo kale gudoomiyaha jubbooyinka xiriirka kubadda cagta dalkeena Soomaaliya Carabi sidoo kale waxaa halkan ku sugan xogayaha xiriirka mini footballka kaas oo isagana markaas halkan ka hadli doona Xaaji Aadan Cabdulle Xaaji bal ka warbixi garoonka maanta halkan laga furayo iyo mini footballka kaalinta ku leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa salaamaya dadka soo qayb gala dhammaan furitaanka Peace Stadium oo waqtigii la aasaasayay ama la qabanayo hawsha lagu dayactirayo barnaamijkan oo joog u ahayn waxa ugu mahad celinaynaa Oriya ugu mahad celinaynaa insha Allah taala oo qayb asxaabtiisa oo kamid yahay macalinka Maxdi Japan iyo dadka maaragtay deegaanka oo maaragtay qiimo badan meeshan injineerka intaas oo ugu mahad celinaa waxaan rabnaa inaan sheegno hadana Soomaali mini football waxaa la socotaan kubadda cagta oo 12 lagu ciyaaro waxaa lagu ciyaaraa garoon 12 loogu talagalay hase yeeshee salaxyada iyo garoomada noocan oo kale ah waxaa lagu ciyaaraa 5 6 iyo 7 oo inta buurtiir oo ku jiro taasna waxay caddeyn u tahay Soomaaliya oo helay garoomo aad u tiro badan garoonkan waa maanta Ramadaanka garoonka shanaad oo aan ka furayno magaalada Muqdisho oo mini football ah waa ugu hambalyeynaa mini footballka horumarka uu gaarayo waa dadweynaha oo soo dhaweeyay mini footballka idinka dirtiin ayaan u shaqeynaynaa idinka laantiina ma shaqeyn karno marka waa soo dhaweynaynaa insha Allah taala waxa mahad gaar iska leh mar labaad aan u mahad celinayaa Cabdi Wehli Orey oo runtii kaalmo muuqata ka qaatay garoonkan maadaama gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdi Xaaq oo aad taqaanaan oo legend Soomaaliyeed oo nala joogo xaajigu waa noo soo gabagabay doonaa laakiin Cabdi Xaaq aan la yarsi doonaa insha Allah salaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم ما سنتها حوية كل بعض وحن جعله إن عن عمل يوم أصحاب تحسوق في شيء مدحنا أولمبيكدا وحاج علو سيدو كله حاج آدم عربي ونوغي من مرتين نوغوها جبلة نوغي من وصنع حرق لجري سجى حاج علو sidoo kale waxaan u hambalyeeyaa dhammaan dadka garoonka ka shaqeeyay inay suubiyaan sida Cabdi Wehli oo kale diin saaxiibkayga oo legend qaran ah oo ciyaartooy soo ahaan jiray insha Allah dhammaan dadka sportiga jecel ku ciyaarayo waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin sidaan ugu soo dhaweyseen hambalyeeyaa idin leenahay xafadiina waa kii ugu horeeya u maleynaa waa idin hambalyeeynaa haddaan nahay mini footballka insha Allah.